xaaladda deegaanka Dhoob ee gobolka Sanaag ayaa degan kadib markii shalay uu ka dhacay halkaasi dagaal culus oo u dhaxeeyay jabhadda uu hogaamiye Korneel Caare. dagaalka ayaa si gaar ah waxa uu uga dhacay deegaanka Dhoob oo qiyaastii 45 kiiloomitir dhanka waqooyi uga beegan magaalada Ceerigaabo ee xarunta gobolka Sanaag, waxaana dagaalkaasi ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. inta la xaqiijiyay dagaalkaasi ayaa waxaa ku dhintay hal askari oo ka tirsan ciidamada maamulka Somaliland iyo 2 sarkaal oo dhaawac uu soo gaaray, waxaana jira gaadiid ciidamada Somaliland ay lahaayeen oo halkaasi lagu gubay. jamhadda uu hogaamiye Korneel Caare ayaa la sheegay in ay weerar ku qaadeen ciidamo ka tirsan maamulka Somaliland. sidoo kale dibadbaxyo ayaa waxa ay ka dhaceen magaalada Burco xarunta gobolkaasi Togdheer, halkaasi oo ay dad shacab ah wadooyinka xirteen, waxaana hakad galay isu socodkii gaadiidka ee magaalada.